daawadayaal ku soo dhawaada wararkii Warshiil TV qodobada aanu idinku hayna warkana waxa kamid ah dawladda Mareykanka oo shuruud adag ku xidhay taageero ay u fidiso dalka Soomaaliya Kenya oo ka digtay arrin dhici doonta haddii kiiska badda loo xukumo Soomaaliya madaxweyne Xaaf oo ku biiray shirka madasha iskaashiga ee Soomaaliya Cabdirashiid Xidig oo si kulul uga hadlay kiiska nabadoon u xiran maamulka Axmed Madoobe daawadayaal kuwaasi waa qodobadii warkeena ugu doorka roona haatana ku soo dhawaada warkiyo faahfaahsan safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay madasha shirka caalamiga ee iskaashiga Soomaaliya ayaa shuruud adag ku xidhay taageerada dawladda Soomaaliya ay u fidiyaan Mareykanku safiirka ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay dalka ku maamusho markaana ay ajandaha shirka ku arkeen kaliya baraha bulshada sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ka warhayaan war-saxaafadeedka laga soo saari doono shirkaasi waa sida uu hadalka u dhigay dhanka kale madaxweynaha Puntland ayaa soo hadal qaaday khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Puntland waxaan uu sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay wada hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo shalay ay Puntland iyo Jubbaland qaadaceen shirka madasha iskaashiga ee Soomaaliya kaasi oo maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho
shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 50 dowladood waxaana diiradda lagu saarayaa arrimaha amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo cadaaladda cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah madaxweynayaasha Jubbaland ayaa cambaareeyay xadhigga nabadoon cabdi colow oo maalintii labaad u xiran maamulka Axmed Madoobe xidig ayaa sheegay in nabadoon colow uu ka mid yahay xubnaha isbedel doonka ee Jubbaland isla markaana uu si aad ah u dhaliili jiray Axmed Madoobe sidoo kale waxa uu sheegay in xadhiggiisu yahay sharci darro isla markaana uu qoraal ku aadan xadhiggani uu gaarsiiyay qaramada midoobay dowladda federaalka iyo dhammaan hay'adaha ay khusayso nabadoon cabdi colow oo ka mid ah nabadoonnada reer Jubbaland ee u ololeeyay isbedelka sida xoogana u dhaliila maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyay Axmed Madoobe qoraal ayaan gaarsiinay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay taliska booliska ee Jubbaland dowladda federaalka iyo dhammaan hay'adaha ay khusayso ayuu yiri xildhibaan xidig nabadoon cabdi colow oo haysta dhalashada dalka Canada ayaa habeen hore gurigiisa waxa kala baxay ciidamada Jubbaland ee daacadda waa Axmed Madoobe kuwaas oo ku xidhay xabsi u dhow hoygiisa tan iyo markii ay dhacday doorashadii muranka dhalisay ee dib loogu doortay Axmed Madoobe waxa gudaha magaalada Kismaayo ka taagnaa xiisado u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo garabka mucaaridka oo si weyn u dhaliila maamulka Axmed Madoobe daawadayaal intaasi waxayna ugu dhan wararkeennii Warshiil TV tan iyo intaynu ku kulmi doono warkan xiga waxaan idinkaga tagaynaa